muqdisho xaggaana waanu joognaa haddaad maanta aad afkii isirkii soomaalinimo aad noogu beddeshay inaad orab noogu abtiriso oo aanu kaa dhagaysanay oo aad mar labaad haddana aad tiri waxaan idigu aqoonsan doonaa dhulkiinni baan idigu aqoonsan doonaa waxaan ku weydiinayaa muuse aqoonsiga iyo isirnimada iyo maa horreeya dhulka iyo aqoonsiga iyo maa horreeya dadkan reer Somaliland ilaahay baa aqoonsaday aqoonsi kale ay kaaga baahan yihiin haba yaraatee ma jirto ma waxaad ugu tala gashay sidii reer banu Israa'iil inta aad qaado inaad bariga dhexe aad u geyso ilaa waxaanu aragnaa muuse waxaanu kugu naqaanay dad cun ee dal cun kugu maananaqo balse waxaan ballan kugu qaaday haddii xabashi waddankayga aad ugu tala gashay inaad u xalaalayso aqsimu billaah aniga calanka ka taagi doona hargeysa qofka ugu horeeyo ka taagan noqon doona muuse haddii ay siyaasiyiinta ama dadka reer Somaliland ay kugu daawadeen waddanka burburkiisa iyo baabiisa annaga la jecel kale annaga doonayna waxaanu doonaynaa oo aanu ka dagaalami doonaa oo aanu dhiigayaga u qobi doonaa inaanan taaka ka mid ah badda Soomaaliyeed aan Itoobiyaan loo xalaalay waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaa oo aan arkaa shacabka muqdisho oo cadceedda u taagan oo dareen muujinaya jacaylka ay waddankooda u qabaan waxa maanta ii muuqatay inay iiga la jecel badan yihiin dhulkayga waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadku isma nabca siyaasi dana gaar ah ummadda hortaagan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh